kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad ka joogtaan dunida soo dhawaada. Waxaan bilaabeynaa performance management oo ah qeybo ka mid ah qeybooyinka ACCA course-ka. Arrintan ayaa waxay timid kadib codsiyo badan oo iga soo gaareen arday kala duwan oo adduunka meelo badan ka joogaan, waxayna codsadeen in qeybadan aan ka bilaabo maadaama ardayda intooda badan ay exemptions ka helaan ACCA-da oo inta badan ardayda qualification sameeyaan ay u badan yihiin arday markaas jaamacad soo dhameeyeen ama adiga qualification kala wataan oo laga reebo qeybooyinka qaar. Marka qeybadan ayaa waxay tahay qeybada shanaad ee course-ka. Waxaa ka horeeyaan 4 qeyb oo kale oo aad muhiim u ah. Haddii codsiyo kale oo ay yimaadaan ayagana waan u sameyn doonaa hordhac ama maaragtay faahfaahin waan ka bixin doonaa qeybooyin kale, waana ka caawin doonaa ardayda meelaha tricky ah oo examination-ka maaragtay ardayda inta badan challenging ku noqoto. Haddaba qeybadan u guda galo waxay tahay iyo sida maaragtay ay hordhac u noqon doonto qeybooyin kale ee koorsadan ee aan sameyn doono oo markaas aan rajeynayno inay ka faa'iideystaan ardayda Soomaaliyeed ee adduunka meelaha kala duwan ka joogaan. Qeybada performance management-ga saa sheegay waa qeybada shanaad ee koorsada ACCA-da. Performance management waxaa laga wadaa maareynta waxqabadka. Waa qeybo ka hadlayso sida loo maareeyo waxqabadka ganacsiyada, shirkadaha, charity-yada iyo public bodies-ka. Public bodies waxaa laga wadaa hay'adaha dowliga ah, hay'adaha maaragtay markaas private-ka ah, shirkadaha shaqsiyaadka loo leeyahay, ganacsiyada shakhsiyadeed iyo dhammaan maareynta waxqabadka ay ka hadashaa. Qeybada waxay diiradda saartaa dhowr topic oo markaas aan kor istaagi doono. Haddii aan ka gudbo intaas introduction qeybada, qeybadan pass mark-geeda waa 50. Marka imtixaanka markaad sameysid waxaa lagaa rabaa kaliya inaad keentid 50%, 50%. Laakiin 50%-ga is not easy, ma fududa inaad keentid, dad badan ayay challenging ku tahay. Waxay ka kooban tahay examination-ka qeybadan sidoo kale waxay ka kooban tahay calculations iyo sidoo kale theory. Calculations waa xisaabaadka, theory-gana waxaa waaye sharaxaadda xisaabaadka. Marka boqolkiiba 50 qeybada waxay ka kooban tahay calculation, boqolkiiba 50 kalena waa mataqaanaa faahfaahin aad ka bixinaysid cilmigii iyo xisaabihii iyo wixii aad calculate garaysay. Haddii marka aad tahay qof ku wanaagsan xisaabaadka, waxaa weeye in maaragtay marks badan aad ka maaragtay aad ka heshid halkaas, haddii kalena inaad ka heshid. Sidaa u sheegay qeybadan waxaad ka heli kartaa notes-keeda meelihii aan idin soo sheegay oo muuqaalada hore aan idinkugu soo sheegay, iyadoo video lectures ana waa heli kartaan. Qof kasta iyo dadaalkiisa iyo maaragtay markaas waxay ku xiran tahay qof kasta iyo dadaalkiisa iyo sida maaragtay waqti isu geliyo ayay ku xiran tahay. Haddaba saaxiibayaal waxaan u guda galaynaa units-ka ay ka kooban tahay qeybadan. Qeybadan performance management-ga waxay ka kooban tahay unit-yaasha soo socdaan oo ay ka mid yihiin information systems-ka, data waxa laga wado, costing-ka, all these are costing. Inta waxay ka bilowdo through accounting, environmental accounting, relevant costing, cost volume profit analysis, linear programming. Kuwan dhan waa decision making. Decision making waxaa laga wadaa go'aan qaadashada. Marka qeybadan waxay u kala qaybsan tahay ilaa 5 qeybood. Qeybta koowaad waxaa waaye waxay ku baraysaa information system-ka iyo datada, xogta iyo mataqaanaa iyo system-yada ay shirkadaha ku shaqeeyaan ayaa ku baranaysaa. Waxaa ku xigo
costing techniques-ka waxaa weeye qaabka loo xisaabiyo qarashaadka kambaniyada. Qaabab waxaa jira loo xisaabiyo oo fara badan. Qaabab waxaa jira beebadan ka horeysay beebadan assuming average-ka u tahay oo lagu magacaabo management accounting ku jireen oo ay kala yihiin direct costing, indirect costing, waxyaabahaas. Beebadan marka costing techniques cusub ayaa ku jiraan oo maaragtay ay ka mid yihiin activity based costing. Waxaa weeye qiimeynta qarashka agabka iyadoo la isticmaalayo hawlaha ay shirkadda qabato. Direct costing waxaa weeye qarasheynta alaabadka ama agabka shirkadda iyadoo la isticmaalayo habka direct costing loogu magacdaray. Direct costing marka steps uu leeyahay, steps ku arki doonaa. Life cycle costing aa jiro oo ayadana mataqaanaa markaas ah qiimaha maaragtay iyo qarasheynta agabka shirkadda dhammaan intuu agabkaas uu jiro. Marka intaas waa costing techniques-ka. Inta waxaa ka bilaabanayo throughput accounting waxay bartaa dadka bal shirkadda waxay iibinaysaa, waxay soo saaraysaa. Waxaa ka fahmaysaa meeshaan waxa shirkadda ay soo saarayso ama iibinayso, qarashka ay ku iibinayso iyo qarashka markaas uga baxayo in ay isleeyihiin iyo in kale inay kala yar yihiin. Waxyaabahaas ayaa lagu xisaabiyaa. Marka waa method jiro oo baran doonaa oo hor istaagi doonaa waxaasna jiraan. Okay, haddaan ka socono decision trees waxaa weeye markaad go'aan qaadanaysid qaabkee go'aanada shirkadda loo qaataa. Risk uncertainty waxaa waaye markii aad ganacsi ku jirtid, markii shirkadda wax soo saar ay samaynayso, waxaa jiro khataro soo wajaho, waxaa jiro waxyaabo markaas aan la ogeyn. Risk iyo uncertainty way kala duwan yihiin. Risk waxaa weeye wixii aad ogtahay waxa ka imaanaya. Uncertainty waxaa weeye wixii aad wax ka imaanaya. Tusaale, risk haddii maantayto maaragtay aad alaab aad wada dhigto oo dad gawaari ay marayaan, waa ogtahay agabkaas inuu burburayo, wax ka imaanaya waa ogtahay. Uncertainty hadda pandemic lagu jiraa, markii pandemic uu cusbaa wax lagala kulmay lama ogin, inta qof oo maaragtay uu galaafan doono ma la ogin. Marka waa uncertainty, waa xilli aan la saadaalin karin wax u socdo. Learning rate-ka waxaa baranaysaa dadka markay shaqo qabtaan ay hawl hayaan, marka ugu horeysa hawsha aad qabatid iyo markii aad hawshii 10 mar aad qabatid ama 100 mar aad qabatid isku ma qabanaysid. Marka waxaa jiro waxa la learning rate and learning rate la jiro oo markaas maaragtay qofka wixii uu qabto uu ku celceliyo waxa weeye gacanta u fadhiisato waxa uu macdarno. Marka waa baranaysaa qaab waxaa jiro loo xisaabiyo iyo qaabkii meesha uga faa'iidi karaan. Material mix and yield variances kuwaan marka waxaa weeye waa intaan hoos dhan waxay hoos imaadaan performance management-iga dhabta ah oo ah in la maareeyo waxqabadka managerka, waxqabadka shaqsiga. Haddii alaab aad iibinaysay ama alaab aad qorshaysay inay kharash qiimo kugu kacdo balse qiimo ka duwan oo ka badan ay kugu kacdo, waxay imaanayso inaysan isku dheelitirnayn oo ay kala badan tahay. Marka kala badnaantaas ayaa waxay u baahan tahay in la baaro oo qof mas'uuliyaddeeda u qaato. Marka qaababka loo baaro iyo qaababka markaas maaragtay halkan ku baranaynaa. Okay, waxyaabahan kale waxaa weeye mataqaanaa waa arki doonaa one by one, laakiin content ay ka kooban tahay beebada waa intaan ka soconaynaa. Saa sheegay waxaa weeye waa intaa wixii ka kooban tahay beebada waa 1 2 3 4 qaybood ilaa 5 qaybood. Marka costing techniques-ka, decision making tools, budgeting and variance analysis, performance management iyo waxaa u baahan tahay aqoontii aad ka soo khasbatay beebadan performance management accounting-ka. Haddaan ka socono ujeedada beebadan maahan in aan maaragtay idin baro oo mataqaanaa aan topic by topic aan u soo qaato oo aan kor istaago oo aan sidii maaragtay macallin iyo arday maahan. Ujeedadaas maahan. Ujeedada waxaa waaye keliya in
maaragtay aan idinla wadaago waxyaabaha trickiga ah oo ku jira beebooyinka, waxyaabaha meelaha la isku qaado oo imtixaanka maaragtay examinaska ee ardayda ku gaadaan, meelaha maaragtay waqti badan uga baahan, meelaha fahanka badan uga baahan, meelahaas unbaa focus saari doonaa. Beebadii halkaas ayay ku jirtaa, waa idin sheeg meesha ku jirto. Adaa laga baahan yahay inaad raadsatid, adaa laga baahan yahay inaad waqti gelisid. wixii markaas aad fahmi weysid oo aad ku wareegtid waad nala wadaagi kartaa. inta kalaankeena waa kugu caawinaynaa, waa kula wadaagaynaa sharaxaada intaan isku dhaano waa wadaagi doonaa. laakiin maaha in maaragtay oo wixii aad hadda baranaysid maaha, barashadii adiga lagaa rabaa. meesha aad ka baran lahayd waa kuu tilmaamay. marka aniga waxaan just kuu sheegayaa un beebada meelaha trikiga ah iyo dhiirigelina kuu noqdo oo maaragtay ogaatid journey-gan inaad keliya ku jirin oo ay jiraan dad badan oo walaalaha ah oo Soomaaliyeed oo journey-gan soo maray, kuwa hadda marayaan. aadna heshid community iyo dad markaas maaragtay wixii aad danaynaysid ku jiraan oo journey-ga maaragtay cilmigaaga iyo barashada aqoontaada ka caawin karaan inay joogaan. adigana maaragtay aad beri ka maalin qof kale waa ka caawin doontid. Okay, meelaha trickiga oo beebada la isku qaado kow waxaa kamid ah assumption costing. Assumption costing waxaa laga wadaa waa hab dhaqameed loo xisaabiyo overheadska. Overhead maxaa laga wadaa? Overheads waxaa waaye qarashaadka qarsoon, qarashaadka aanan toos u muuqanin oo maantayto markii product la sameynayo aad dhihi karin oo waxaan qarashkaas wuxuu ku baxay productgaas. tusaale qofka supervisorka lacagta la siiyo way ka duwan tahay lacagta markaas maaragtay qofka alaabta sameynayay la siiyey, because qofka supervisorka asaga alaabta ma sameynin, laakiin qofka alaabta sameeyay asaga alaabta sameeyay. marka qarashka qofkaas la siiyey waa overhead. marka assumption costing wuxuu mataqaanaa involve gareeyaa saddexdan qaybood oo allocation ah in maaragtay costeska la allocate gareeyo. Apportionment waa in mataqaanaa loo kala qaybiyo oo la dhaho kan intuu ku baxay, kan xaw ka baxay, kan xaw ka baxay, and then in lagu dalaco absorption lagu dalaco mataqaanaa qarashaadka in product lagu dalaco. waa formula jirto iyo techniques waa baran doonaa. formulada for absorption costing waxaa waaye qarashaadka directiga ah ayaa waxaa ku daraysaa qarashaadka markaas oo laborka ah ayaa waxaa ku daraysaa direct material costeska. waxaa ku daraysaa qarashaadka variable waxaa laga wadaa qarashaadka isbedelo oo wixii markaas maaragtay ku xiran inta unit oo soo saartay. dhammaan qarashaadkaas ayaa waxaa ku daraysaa fixed manufacturing overheads sidii korontada waa fixed, rentiga waa fixed, waxyaabahaas ku daraysaa, insurance waa fixed, and then wixii markaad isku dartid oo qarashka inaad isku dartid ayaa waxaa u qaybinaysaa unitka la soo saaray. taas ayaa waxaa ku helaysaa absorption costing. Okay, absorption costing intaadan helin waxaa u baahan tahay inaad fahantid product costs waxa laga wado. product costeska waxaa weeye qiimaha qarashka, qiimaha ay ku kacdo agabka, qiimaha kasta oo agabka markii lagu dhaho shaygan intaasuu joogaa, intuu joogo waa dee sales price-ka wixii la iibinaya maahan, laakiin qarashkaana ku kaca marka lagu dhaho waxaa weeye wuxuu ka kooban yahay materialku ka samaysan yahay, xooggii ku baxay iyo wixii maaragtay meeshii lagu sameynayay ay ku baxeen. saddexdaas qaybood ka kooban yahay, kama koobno keliya xoog ku baxay, laakiin saddexdaas qayb oo wada socda ayuu ka kooban yahay. taas marka waxay kaa caawinaysaa inaad ogaatid shayga aragtid in uusan ka koobnayn hal qarash, uu ka kooban yahay qarashyo fara badan. qarashyadaas fara badan markaad isku dartid oo productyaashii way badan yihiin, wax badanaa la soo saaray, product badanaa la soo saaray, units badanaa la soo sameeyey, laakiin almuhiim waxaa weeye waxaa isku dartaa dhammaan qarashka meesha ku baxay, hadduu material yahay, hadduu labor yahay, haddii maaragtay overheadska uu yahay. marka qarashka inaad heshid ayaa waxaa u qaybinaysaa factory overheadska, ayaa waxaa u qaybinaysaa number of units produced oo ah inti number oo aad soo saartay. halkaas waxaa ka helaysaa overhead absorption rate waxa la dhaho. overhead absorption rate waxaa laga wadaa maaragtay rateka maaragtay haddaa ku dhufatid materialka ku siinayo intii material ku kacday, haddaa ku dhufatid labor ku siinayo intii material ku dhufatay, haddaa ku dhufatid